dadka ciyaartooyga markay goolasha dhaliyaan way sujuudaan. sujuuddaas diinta maxay ka qabtaa buu leeyahay. runtii waa moodo hadda soo baxdayoo masaladu iska waa masalo nawaasil ah, hal masalo oo sharciga u noqonaysaa ama idhaahda laba masalo baa saamaynaya. masalada koobaad, sujuuddu keligeedii ma axkaamtii salaaday qaadanaysaa mise ma qaadanayso? ama tilaawo ha noqoto ama sujuudu shukri ha noqoto. sujuuddan la sujuudayay keligeeda xataa kuwa sharcigu oggolaaday ma xukun salaad bay leedahay? xukun salaad waxaa looga jeedaa weyse ma u baahan tahay, cawro asturan ma u baahan tahay, qiblada in loo jeesadana ma u baahan tahay. adoon weyse qabin oo qur-aan akhrisanaya keligaa waad akhrisan kartaa haddaadan kitaab taabanaynin. weysada akhrisanaysa qur-aankaada aysuid soo marto waa xifdisanayd, ma sujuudi kartaa? adigoon cawradaada asturayn baad nicmo ilaahay ku siiyey sujuudu shukri ama qur-aan akhriday, ma sujuudi kartaa? adoon weyse qiblada u jeedin ma sujuudi kartaa tii sharciga ahayd? waa masalo khilaafi oo fuqahadu ay isku hayaan culimmadeennu. sujuudda keligeeda ma axkaamtii salaaday qaadan mise qaadan mayso? asaxu lqowleyn inayna qaadanaynin wey, oo qofku uu sujuudi karo satrulcawra iyo tahaarana ayna sharti ahayn, laakiin masale khilaaf ku jira wey. masalada labaad ee saamaynaysa sujuudda markii xaalad kula soo darista la sujuuda, sujuudu shukri baa la yidhaahdaa. haddii ilaahay nicmo ku siiyo ama musiibo iyo niqmo kaa dulqaado waa la sujuudi karaa. kacb ibni maalik markii toobadadiisa la aqbalay loogu bishaareeyey halkiibuu ku sujuuday, halkiibuu ku sujuuday. haddaba su-aashu waxay tahay, haddii mabda'a guud nicmadii ilaahay qofka uu siiyo ama mid guuda ummadda ha noqoto ama mid gaaroo shakhsi ha noqotee loo sujuudi karo, niqmadii iyo musiibadii ilaahay ka qaadayna loo sujuudi kara mid guud iyo mid gaaraba, halka waa halka ugu muhiimsane goolkan la dhaliyey iyo ciyaaruhu ma nicma mise ma aha? dabcan halkaa way halka lagu kala aragti duwanaanayo masaa'ilka ijtihaadiga ay culummadu isugu khilaafeen wakhtigan joogay. qaar waxay yidhaahdeen gool la dhaliyey oo banooni harag iyo laastig hawe laga buuxiyey, shabaq xiran iyo laba bilood dhexdood lagu tuuray, nicmo mudan in loo sujuuda ma aha. qaarna wayba sii fogeeyeen waxay yidhaahdeen macsiyo weeyo, macsiyadda ilaahay loogu mahad celinayo shukri loo sujuuday ma jiro. qaarna waxay yidhahdeen waa nicmo, nicmadu waa wixii ku farax geliya, niqmaduna waa wixii aad kuu muruga geliya. dhalintiisuna waa nicmo weyn, aad baa loogu farxa qofka iyo taageerayaashiisii iyo dadkiisiiba. in lagaa dhaliyo laga adkaadana waa musiibo weyn. hadba qiimaynta la yidhaahdo gool baa la dhaliyo ma nicmo weynba oo sujuud mudan mise ma ahan bay ku xiran tahay sujuudda ay dadka ciyaartooyga sujuudayaan. ma bannaan tahay mise ma bannaana? masaa'ilka nicamkuna waxaan waa nicmiya ma aha. dadka wakhtiga la joogo iyo dabaqadaha lagu kala nool yahay iyo da'da la kala yahayba, curfiga dadku waxaana nicmo weyna way isbedbeddeshaa. saa darteed baa in si loogu kala dhowaa ama ibaaxadeeda loogu kala badnaa marka laga soo taga qaabka loo ciyaarayey iyo maxaaraan baa ku jirta iyo ma muxaramaad kalaa la samaynayey iyo ma qimaar waxyaabaha gelayay ay ka mid ahayd iyo marka laga soo taga aan ka soo qaadno ciyaartan la ciyaarayay inay mubaax ahayd. hadday mubaax ahayd anu garan maayo inta adilada garanayo nicmadu xaddaa inay gaadho weeye marka loo sujuudayo wax sharti ka dhigaya garan maayo. haddii ay noqoto xilligaa iyo duruuftaa lagu jiraayey inay nicmo noqon karto asalkii ibaaxada ahaabay raacaysaa. intaa waxaa dheer waxaa laga yaaba mararka qaarkood inay muujiso ama nooc dacwo ay noqoto meelaha qaarkood iyo munaasabadaha iyo mayaadiinta markay ka dhacayso. maxaa arkaa kuwa gaalada markay goolka dhaliyaan calaamaddii kiristanka ay muujiyaan inuu mararka qaarkood qofku hiwaayadiisi iyo muslim inuu yahay muujiyaaye marar baa waxaa la banneeyaa wax sharciga xaaraam ku ahaa, xaraga socodka, xaraga kibir in loo socdo iyadoo sharciga kabaa'irta ka mid tahay.
maydaanka jihaadka markay joogto oo qofku geesinimo uu ku muujinayo waa la oggolaaday. timaha cadee la madoobeeyo culimmadii waa xaaraam tiri markay maydaan jihaad joogto oo nin xoog badan la isaga dhigaya dadkii fuqahada qaar itifaaq bay soo guriyeen isku raaceen inay bannaanta mayaadiinta qaarkood oo lagu muujinayo qofka muslimadiisii iyo diintiisa wax ka gaarsiinayaay inay wanaagsanaato way dhici kartaa.